waayahay dagaalka wuu sii xoogeystay ayadoo gobolka uu dhacay oo afurkii lagu jiro weliba hadda taraawiixdii iyo xilligii la geli lahaa bariga dhexe xaaladiisa aad u sii xumaatay marinka hormuus oo gabi ahaanba xirmay Iran ayaa xirtay arrin culus waaye adiga da kula fududahay muuqaalka bal dhameys adaa yaabi doontideed maxaa yeelay sicir bararka Soomaaliya ayaa laga dareemi doonaa berito dhanka shidaalka waxaaba macquul ah bajaajo far badan in la dhigo oo aan la wadi karin sababtana waa idin sheegayaa laakiin caawa sidoo kale duulaanka ama dagaalka socdo Iran istaraatiijiyo cajiib ay ciyaaraysaa waxay Israa'iil ku garaacaysaa gantaalada noocooda hypersonic ah laakiin maadaama Israa'iil difaaca cirka ee isticmaalayso oo Ingiriis hadda dagaalka uu soo galo ka caawinayo Israa'iil dhanka hawada Mareykan uu ka caawinayo dhanka hawada joogada dhanay bedeshay Dubai ha lagu habsaday dhahday Dubai caawa haba ka dhigtay Iran caawa Dubai Burj Khalifa dabaqay ugu dheeraa ee Dubai ku faani jirtay waxa waa Iran caawa xirabtaa haddii ayada saan loo galaayo oo cunaqabateen cunaha laga qabanayo oo la miijinayo oo dhiig laga miiraayo ayadana waxay taagan tahay imaaraad carabo isoo raac waa isla wada galeena godka Sacuudi isoo raac dadka noola ka hadlayna Ciraaqi kuwaas dagaal ku jiraan iska dhaaf Kuwaiday adigana isoo raac Qadaray adigana isoo raac caawa dalalkaas caawa kaliya hadda dagaalka soo ma socdo waxaan dhameyn xitaa 10 saacadood caawa kaliya inta lacag ee ka qasaartay dalalkan hadda idin soo wado waa Sacuudiga waa Ciraaqe waa Kuwait Ciraaq horta iska saarbo waa Kuwait waa Sacuudiga waa Qatar waa muxuu ahaa Imaaraad Carabe waa sidoo kale waxa ku dartaa xitaa Ciraaq iyo Cumaan xitaa iskaga dar laakiin dalalka qariirada ilfiir marinka Hormuz marka maqasho marinka Hormuz waxa arkaysaa shidaalka yar ee hadda Kuwait iyo Ciraaq laga soo diro meel kale oo ay mari karaan habeeraatee ma jirto iyaga dhan halkaas baday qabaan marinka Hormuz sidoo kale Sacuudiga asagoo dhankan badda cas xuduud la leh shidaalkiisa inta badan waxa laga dhoofiyaa dhankaas iyo marinka Hormuz sida uga jeedaan qariirada Qatar ayada bad kale oo ma lahaba marinkaas Hormuz leeba dhax fadhisaa qadarta lagu sheegayo Imaaraad Caraba ku soo haray botaalihi asagana bad kale maba qababa marinkaas Hormuz ahaan awood ay Iran uga hortagaana ma qabaan Qatar Imaaraad Carab Sacuudi Ciraaq iyo Kuwait caawa wadadii ay ku neefsan jireen ee dhaqaale ka keeni jireen laga xirtay Iran xirtay gujisadeeda xitaa Iran caawa warku waxay sheegayaan inay miino ku duugayso dhulkaas almuhim marka waa saacado kaliya isbedelka iyo cabaadka iyo saxmada dhanka dhaqaalaha iyo buuqa iyo sicir bararka isla markii waa la dareem marka marinka Hormuz saameyntaas aadka u balaaran ayuu leeyahay 20% shidaalka dunida la dhoofiyo ay dhulkaas maro 20% ila Ciraaq iyo Kuwait iyo Sacuudiga iyo Qatar iyo Imaaraad Carab iyo waa aday isku tagaan waa shidaalka dunida intiisa badan waayba dalalkan hadda inuu sheegay isku tagaan meeshaas kaliyana waxooda marsistaan marka hadda isleedahay maxaa marinka Hormuz loo hadal haya ma saameyn noocu leeyahay hadda isleedahay that's it waa halka mariyaan maraakiibtooda shidaal waa Sacuudiye waa mid soo celinayna okay ka gudub Mareykan wuxuu yiri asagana war soo saaray Mareykan wuxuu taagan yahay cutub ciidamada diyaarinaba oo difaacayo marinka Hormuz Iran ka difaacayo Mareykan alle aawahe waaba la xiray baasha hadeertaan inta muuqaalkan duubayo baasha way xiran tahay darooniska Iran iyo gantaalada Iran iyo balaayo meesha dhanbu waxa isleedahay waagi maxkamadaha iyo hogaamiye kooxda ishaysteen miyaa rasaas dhinac walba u socota marinka Hormuz marka Mareykan wuxuu qaadi doonaa iyo qaabka uga sifeyn doona Iran iyo aragno waayahay niyo dagaalka dhanka maraakiibta wali Iran ma soo gelin aniga dhan waa yaabanahay ilaan waxa la isdhahayay markay qacda bilaawato Iran waxay bartilmaameedsanaysaa maraakiibtan waaweyn ee dagaalka ee Mareykanka meesha yaalo gantaalay ku tuuraysaa ilaa hadda ma dhicin laakiin dagaalka waa hadda jabtarka koowaad laba ku jirnaa waxa soo socdo bal aragno waayahay dib noo soo celi Dubai caawa la yaaban yahay Dubai hadaadi gabadha daawanayay oo British ah Ingiriiska ka timid meesha dalxiis wax u joogto maxaa ku keenay Dubai ee uga cadeed baskito meesha dhulka iskaga soo kortay oo dagaal iyo waxba arkin hal mar gantaal kormaray hotelka ee jiiftay ee loo yaqaan Palm hotelkan hadda Dubai tagtay hotelkan qasab oo arkaysaa aad u weyn yahay madaxda caalamka iyo dadka kasta haysto aadago
caawa laba daroon ku habsatay hotelkii quruxda badnaa saan ahaa saanu noqday hotelka saan ahaa saanu noqday waayay sheekada meel aad u macaanay maraysaa dagaalku wuxuu u muuqdaa mid bilaaw ah Israa'iil iyo Iiraan hadda si toos ah isku jafaayo Mareykan wuxuu u muuqataa dhaawac gurasho inuu ku jiro goobo military Mareykanku uu leeyahay saldhigyo oo Bahrain iyo meel Dubai u dhow iyo aalaga duqeeyay Iiraan duqeys kulli wax dhimashay dhaawac aniga ma ogin laakiin wuxuu u muuqataa xogaa gurasho inay jirto iyo qiimeen sida wax yihiin intaas waa intaas dhanka Iiraan ayadana kulay wali sidii noo sheegayeen dad saraakiila dilnay inta ka dhacday laakiin waa arki doonaa meesha ugu dambeysay laakiin intaas soo korortay marinka Hormuz oo Iiraan ay leedahay waa la xiray iyo saameynta ballaaran iyo dagaalkan oo ka ballaartay Iiraan Israa'iil iyo Mareykan dagaalku waxa si toos ah ugu jiro Ingiriis Sacuudi Imaaraat Carab Qatar Bahrain Kuwait war cid dhiman ma jirto bariga dhexe weligiis ma noqonin